بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسلسلة دي مانديق كوربا كحيرا صومالي ودانا يا إسكاله أنيقو أحمد نور محمد عبد الله نهسادي قبرتين وأيا إذين دهين أيه ولا ليالو آد بي فرحادو تهي تلابدا dhaqanka reer koonfureed ay ka qaadeen sidii dabka ka kacay iyo dhibaatada ka aloosan oo lala dul yimid lala soo doontay reer laascaanood ugaaska abgaal cusmaan iyo dhaqanka ka yimid koonfur galbeed caqlina waa qabaan dhigana way qabaan dareenna way leeyihiin isla markaasna dad ilaahay yaqaana inay yihiin oo runta ay wax walbaba ka sheegayaan soo dhowayntii fiicnayd oo lagu suubiyey soo dhowayntii fiicnayd oo garowe loogu suubiyey iyo laascaanood iyo dhaqankii ka hor yimid iyo qiimayntii waa waxaa lagu yaqaano reer muqdisho iyo koonfur galbeed markii ayagana meelahooda loogu tago dabeecadda iyo dhaqanka inay leeyihiin marka way ku ammaanan yihiin dhaqanku sida wanaagsan oo qiimaha leh oo tixgelinta leh inay ugu caddeeyaan dhulka ay joogaan in ay dhulkii ayagu ay lahaayeen uu yahay waana dhab ummadda soomaaliyeedna dadkii iimaan leh dadkii ilaahay aragtida fiican u dilaacinaya dadkii xisaabtamaya oo maskaxdoodu aysan wax caalira aysan qabin ummaddani waa ul iyo dir ayadoon munaafaqayn ahayn nin kasta ee soomaaliyeed waa inuu dhul soomaaliyeed sharaf iyo wanaag na u joogaa ugu noolaadaa gurigiisii kale inay tahay waayo sidaasaaban isku nahayba marka soo dhowayntii wanaagsanayd ee isimadaas ay u sameeyeen waa ku wanaagsan tihiin waad ku fiican tihiin meeshii caanka ahayd baanad mariseen oo layna ku yaqiinay waxaan leeyahay haddii ay idiin diidaan haddii wanaagga la rabo ay mari waayaan waddadeeda waayo maskaxda ummadda waxaa ku cayaarayaay waa muuse biixi cabdi waxaa weeye muuse waxa uu doonayo nin walba oo soomaaliya rag iyo dumar waa xukunkaas ninna inuusan uga dambayn isla markaasna labada ugu balballaaran dad ahaan inuu cidlo ku dhammeeyo waa hadday habar yoonis tahay waa hadday habar jecela tahay isla markaasna habar awasha uu ka dhashay
runtii dhib iyo wareer iyo rafaad in ummadda soomaaliyeed dhexdeeda lagu suubiyo ma ay oggola, gaar ahaan reer isxaaq oo dhaqanka habar awal dembi kuma laha. waxaasoo dhan waa asaga iyo dhowrkoo nin oo si gaara wax ula cuna. habar yoonis iyo habar jeclo cirka fiiriyaa la yidhi, xukun waxaad ka raadisaan cirka ka raadiyaa la yidhi. qofka soomaalidu waxay tidhaahdaa mu'min god 2 jeer lagama qaniino. shalay bay ahayd wixii dagaalkii ballaarnaa lagu qaaday markuu tuur uu haystay, dhibaato weyn la soo maray, rafaad weyn la soo maray, intaa la dagaalamayey. waxaa weeye iyadoo waxba la qarinayninna habar yoonis waa dad aragti dheer, waa dad garasho dheer, waa dad maskax dheer, waa dad dhaqan ahaanna aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu taxan. waxaan ini leeyahay meel baas iyo reera muskood yaan la idiin wadan. idinka markii la isugu kiintegay habar yoonisa maxaa ku dhacay? habar yoonis muddo ka bacdi maxaa ku dhacay? soo iyagii qaylinayay 4 bilood 5 bilood ka hor xukunkaasaa nala ka qaaday, xukunkaasaa nala ka qaaday, xukunkaasaa nala ka qaaday, xukunkaasaa nala ka qaaday, halkaa waa nala ka bixiye, halkaa waa nala ka bixiye. maantana harag shabeel ayaa lagu soo qaadanayaa. oo quruxdiisa iyo wilwiliciisa lagu tusayaa, inta lagu yidhaahdo ninkaanow xilka adigu qabo, waxaanow hoo ahey. waa marka dantaani taagan tahay. habar yoonisna iyo habar awalna iyo dadka oo dhanna waa reer isxaaq. inaa qolo loo kala eexdo ma aha, wax walbaba cadaaladda u fiiriya. muuse xilka waa uu ka dhammaaday, gardarruu u joogaa. waxa uu ummadda u baabi'inaya waa gardarro. war iska qabta waryaa dastuurka aad dhigateen, walowba uusan ahayn kii ilaahay raalli ka ahaa, haddana dastuurka aad dhigateen ku wada socda. haddii kale war celiya carruurta. aniga waxaan ka hadlayaa, anigu shacabkaan u naxariisanayaa. hadduu habar jeclo yahay iyo hadduu habar yoonis yahay, baaba'a ay baaba'ayaan. waa awood, waa quwad, waa ummadda soomaaliyeed. waxaan aad la boodboodaysaan oo aad la kacaysaan ood cidlada u iskaateen oo aad tidhaahdeen dalka soomaaliyeed waa ka go'nayna, waad ku khaldantihiin 100%. idinka amxaaro soo raacay dalkana baabi'inayey. haddeerna yaad wax u reebteen, yaad wax u waxayseen. waad ogtihiin dhulbahante 99% waa isdhaldhasheen. haye shalayto markuu idinka dagaal idinku soo qaaday yuu haddana u soo leexday reer SSC. marka soo leexashada uu u soo leexday waxa weeye idinka inuu ina hawlgeliyuu rabaa, dhiig islaameedna ini geliyo, ehlu naar aad noqotaan. dadkii wax idinka dhexeeyeen ee walaalihiin ahaa ee meel walbaba aad iskaga xirarnaydeenna, haye uu dhibaato iyo wareer, waayo wakhtigu ku dhammaysanayaa. waa maxay marka? hooyada dahatay carruurta ee dhibaatada hilibkeeda loo qalay iyo aabbaha lagu googo'een siduu lacag ugu raadinayey, markuu koray oo waaneeyey ninkaanu soo qaadanayo, dagaal gal leeyahay.
ama $50 ama $100 gacanta inta loo geliyo naf dhan qof aayatiin dambe laga rabo war caqli yeesha war garasho yeesha war feker yeesha war dareen yeesha war balaaya ku xaqsatay war balaaya harga kuu luushtay war balaaya meel fog kaaga heestay war ka dheeraada war ha yeelinina ha dhiibo ninka xukunka saleebagaal gardarrada uu ugu dhiibay taas waxaan leeyahay walaalahay reer isxaaq anigu wax walba cadaalad baan u rabaa wax walbaba cadaalad buu u rabaa SSCna waad aragtay siday sharafta iyo qiimaha xataa dadka dhaawaca ah iyo dadka isi soo dhiiba iyo wax walbaba ay u soo kala sharfayso ilaahay caqliga kama qaado ilaahay garashada kama qaado waa waxyaabaha soomaalinimada loo halgamay ee daraawiisha ay u ahaayeen oo calanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada iyo gobonnimada cayaarba ay u kaceen waxba aniga reer SSC anoo ah reer Khaatumo ah badana kama hadli jiray barnaamijkooda arrin guud oo Soomaaliya oo dhan baan ka hadli jiray waayo ayaga waxaan arkay aniga inay iga soo horeeyaan ma ahane inaysan iga yaraysan wax sheeg marka igama baahna reer SSC way og yihiin waxa kaliya oo aan leeyahay oo aan kula talinayaa reer Khaatumo xeeladaha khayaanooyinka mardadabaanka luuqyada abuuridda adduunka qolada ugu abuurka badnayd waxay ahaayeen reer bani Israa'iil nooc walba oo khayaano ah ayay yiqiin ilaahay ayaa ummadda oo dhan iyo waxa ay suubinayso oo dhan waxaasoo dhan ilaahay baa awood u leh ilaahay baana og sida uu xalkooda iyo nidaamkooda iyo dejintooda iyo ama guulaysigooda ama banjaridooda kulli ilaahay baa gacanta ku haya yaan waxba la idinku soo gabanin oo khayaanooyin inta la idin dhigo ama calanka Khaatumo la idin soo xirto ama calanka Soomaaliyeed oo la idin soo xirto ama baabuurta Khaatumo calanka ay leeyihiin oo la idin soo qaato kuwooda ay ku soo buufiyaan meelaha aad joogtaan dadka soo aadaya oo ciidamada ah waa in horaysaa idinku sheegay full number nin walba uu leeyahay qof walba oo idin soo dhexgelaya full number waa inuu leeyahay isla markaasna baabuur alla baabuurka iyo dad allaale dadka intuusan meesha imaanin qofku waa inuu isi soo sheegaa anigoo sidaa iyo kan iyo keer iyo kaas ah ayaa soo socda waa in la ogaadaa waxa weeye wax allaale wixii qurun iyo qashaabiir sixirka iyo liidka iyo balaayada iyo arrimaha shaytaanka iyo ibliisku ay walaaqaan ilaahay baa ka diyaariyey bannaanka iska taallaa adoo ehludiin ahoo tukaday oo qul huwa allaha qul acuudu birabinaaska qul acuudu birbalfalaqa aayad kursiga hah ku sii meeshaad gelayso iyo meeshaad ka baxayso waxay dhibaato kugu haysana male ilaahay baa ballan qaaday marka inaan wax dhibaato ah markaa kuu imaanayn tawakkal cala allaahi wa kafaa billaahi wakiila ayay arrintu ku istaagaysaa markaas walowba salaad kastoo aad tukato ay wanaagsan tahay inaad akhrisato ayadoo dhanna 4 daqiiqo kama badna xataa 5 daqiiqo ma noqonayso 4 daqiiqo ama 3 daqiiqo weeye inta aad akhrinaysaa ama ka yarba 2 daqiiqo ba dheh
halkaa waxa waaye sixir iyo shaydaan iyo balaayo iyo waxaasoo dhan kala guurte kala tagte waayo ilaahay baa tala saaratay ilaahay nin tala saartana waa u guul waxaan qodobka kale aan soo gelayaa reer khaatumo dadaalkaas hadda aad wadaan ummadda soomaaliyeed oo dhan baa idinku raacsan wax allaale wixii calankaas buluugga ah iyo midnimada ummadda soomaaliyeed aan doonaynin mar walbaba garab ha la siiyo qofka midnimada ummadda soomaaliyeedna raba calankaas buluugga ahna raba isla markaasna ummadda soomaaliyeed midaynaya oo ummadda soomaaliyeed kulli soo dhoweynaya waa qaldan yahay nin soomaaliyeed ninka guri ka bixiyey waa qaldan yahay ummadda soomaaliyeed nin yiri waa ka go'ay waa qaldan yahay ummadda soomaaliyeed nin yiraahda aniga agtayda la iima imaan karo waa qalad si ilaahay ku abuurayna ma ahasaan waa balaayo ku talisay waana muuse biixi ma aha shacabka hadalkayga marna isma beddelayo reer isxaaq balaaya qoorta ku dheggan maahane midnimada ummadda soomaaliyeed horaa idinku sheegay 85% midnimaday rabaan laakiin hoggaanka xun imaamka ayaa xun isla markaasna ka leexsan diinta islaamka oo dhan waxay la mid tahay wax aan macno lahayn ayay isaga la tahay ma dhowro ma ilaaliyo kursiga ayaa uga weyn wax kasta oo dhan wowsan helayn maahane naagahana inay intay isqaaqaawiyaan isfarteeyaan raggana qorraxdoo saa u taagan inay isfuulfuulaan caalamkao dhanna laga daawado asna uu xukunka haysto waa soomanahay sidaas ayuu jeclaan lahaa suu xukunkaas u haysto rag iyo dumar marka reer isxaaq jannay doonayaan ilaahay bay yaqaanaan waa bini aadan geed ini ka baxay ma aha waxaad yeelaysaan wixii nasabadiinna iyo diinta islaamka idinka hadlaynaya ilaahay dad buu idinka dhigay iska joojiyo iska qabta ummadda soomaaliyeedna kulligeed waa dad walaala waana ummad kulli duntoodu wada fiican tahay ummad cayaara ma aha ummaddaani waxa loogu soo jeestay oo cadow badani intaas soomaaliya u hutowtoynaya waa dadnimada iyo dunta fiican oo aan leenahay laakiin nacas aan waxba garan dhiigyacab aan waxba garan midkaasaa laynoo soo adeegsanayaa sidaan dabku u debin reer isxaaq marka istoosiya waxgarta rag iyo dumarba habababa ha dhihinina waa inaad toostaan midnimada ummadda soomaaliyeedna soo raacdaan bilaa shuruud la'aan shalayna waad khaldanaydeen waayo etoobiyaad soo raacdeen oo aad ku soo duusheen ummadda soomaaliyeed joojiya waxaan waxya kulli shalayna qalad baa ahaydeen maantana qalad baa tihiin mideeda kale uga baxaa ninna dhulkiisa lama taaban karo bilaa shuruud la'aan waa in looga baxaa SSC reer khaatumo dhulkooda ka baxa dhiig iyo balaayo iyo rafaad fara badan goradda ha noo gelinina ma ogolin in dumarkayaga iyo carruurtayada iyo reerkayaga la farageliyo soomaali sida kale oon wax isu tarayno welcome laakiin ka baxa bilaa shuruud la'aan ka baxa haddaad cisho weydaan carruurtiinnana runta waa idiin sheegaynaa waa shiilaynaa waa la shiilaa xaqiiqdu saas waaye
يا شيلايا إلهي با شيلايا ويا إلهي حقه هشا يا شيلايا إلهي دتك الصوماليات ونبو صدريا ويا دتك الصوماليات ودد دينة النبي محمد ولا هيستا نينك اللي قردريا ويا قانان قرب بيسينا يا صومالي وداني قرب بيسينا يسا ولو سو جيسانيا jid baa iyaga la siinaya yaa siinaya caalamka oo dhan oo saw siinayaan waayo caalamku waxa weeye ninka gurigiisa loogu yimid ma ogola xataa bayballada gaalada kiristaanka ah ma ogola ninka gurigiisa in la soo jibaaxo warqad la'aanna laguma geli karo in la soo galo maaha waa maxay waxaana dul dhigay marka idinkuna waa maxay haddaad caqli leedihiin waxa aad u soo kaxaynaysaan dhallinyarada yaryarka aad dhasheen oo aad dagaalka u keenaysaan waa maxay aawe diintii nebi maxamed aawe jidkii rasuulka calayhi assalaatu wasalaam aawe islaamnimadii aawe caqligii iyo waxbarashadii wax la soo bartay nebigeenna muxuu yidhi naftaada waxaa la jeceshahay walaalkaana la jeclow xub liakhiika maa tuxibu linafsika marka waxaan idin leeyahay nin walba gurigiisa tusaalaha ka soo qaato ilaa nin walba qoys xaas buu leeyahay gurigaaga dalaq war heedhayaa soogalku yidhi war iga baxa waa inuu baxaa inuu murmo ma aha qodobka kale ismaaciil cumar geelle oo runtii reer ciisana dhib u geystay weyn soomaaliduna ay tiraahdo ninkii tiisaba daryeela ayaa tu kale ku dara ninka rag iyo dumar ciise gudo iyo dibad waxa jooga dhibaato weyn marsiiyey isla markaasna aan ogaa waagii gobonnimada loo raadinayo jabuuti wixii kacaankii barakaysnaa golihii sare ee kacaanka ay tallaabo ka qaadeen siday dhaqaalana ugu aruurin lahaayeen ciidamana loo gelin lahaa xoogna loo sameeyey nidaamna loo sameeyey barnaamijna loo dejiyey sidii la okeyto oo inta ka noolna sharaftaas ay mudan yihiin oo ay maqlayaan oo ay iga markhaati kacayaan kuwii dhintayna jannadii allah ka waraabiyo ay wanaagsanaayeen waayo reer ciise waa dad soomaaliyeed xasan guuleed abtidoon oo qiimo iyo darajo lahaa ninkan oo ismaaciil cumar geelle ah bacna aan ahayn ta'na aan ahayn qorraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacayso shaki uga jiro oo ummadda soomaaliyeed loo soo adeegsaday isla markaasna uu ka dhigay wax koombo ugu jira danta ummadda soomaaliyeed oo dhan ku bishaaraysto horena waa idinku sheegay reer ciisow ma dhacayso haddii ilaahay yidhaahdo waa la idin kaalmayn garab baa la idin siin qiimahaad leedihiin darajaad leedihiin habbaad leedihiin hilibkayagii baad tihiin dhiiggayagii baad tihiin nin doqona ayaa qabiilo dadka u kala saara soomaali waa soomaali ilaah waana nin soomaaliyeed waaye ilaah waana nin soomaaliyeed waaye ilaah waana nin soomaaliyeed waaye soomaalidu nin nacasaa kala gurgura waana hoggaanka soomaaliya hoggaan wanaagsan ayaa isku wada xiri karaa wakaa xaqi waayahay qodobka ugu dambeeya dadka
maanta teknolojiyadda haysta ee gudo iyo dibadba ka hadlaya ilaahay idankii guul waa la gaarayaa isfara dadka waa la tallaalaa dad tallaala rag iyo dumar dadka hadlayaa ha bateen xoolaha haddii meel walbaba hoy waraabaha hoy waraabaha hoy waraabaha hoy waraabaha laga dhaho naftiisu u baqaa si aan dalkeenna u ilaalinno iyo dadkeenna iyo duunyadeenna iyo diinteenna waa inoo wada qaylo markaad hadlaysaanna eex iyo qaraabakiil iyo wax kale siisiib iyo maya si guud oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u dan ah raaca waayo qalabkaani naarna waa ku geli kartaa jannana waad ku geli kartaa waxa aad leedahay waa inay noqotaa wix sidii nebigu yidhi ama wax khayr la sheeg ama aamus qul ilxaq walow kaana mur haddana xaqa sheeg si kastaba ha u qaraaraade ninka mas-uulka ahi hadduusan wanaagsanayn war ka joog aad tiraahdo uu ka joogi waayo war ka joog uu ka joogi waayo war ka joog uu ka joogi waayo war qoorta ha laga soo qabto dheh waayo diintii baa sidaas qabtaa kuntu khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'maruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar ayay ku fadhidaa maxaa la yidhi caano daatay dabadoodaa la qabtaa waa in laga gaaraa wax walba waayo xumaatadiibuu sii camimayaa xumaatadiibuu sii ballaarinayaa xumaatadiibuu sii wadayaa marka waa in la yidhaha war yaa jooji war jooji markuu jooji waayo waraan ka qabanno dhulkana ilaahay baa leh dadka soomaaliyeed oo dhanna waa ka dhexeeyaa wataa murtidii marka wakaa caqligii marka wakaa maankii marka wakaa xisaabtankii marka ummaddu inay saa wax u garato weeye wiilashana ilaa maalintaan bilaabay hubka qaaday meel kastaba ha joogeenoo soomaaliya war dadkiina ha dilinina waa aniga ku idhi ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda kala ilaaliya xabadda iska daaya weli meeshaydiyaan taaganahay waan ogahay ninka hoggaamiyaha ah ciidanka uu lacagta siiyo wuxuu ka dhigtaa inuu ku adeegsado mushaarkaa la siinaya dartood war maya war shacabkaa iska leh mushaarka aad qaadanaysaa asagu kuma siina shacabkaa iska leh waa canshuurtii shacabka laga qaaday ama dowlado kale oo shisheeye laga soo qaaday magacaagaana lagu soo qaaday magaca soomaali baa lagu soo qaaday marka kuguma u faani karo hadduu qalloocan yahay lama raaco markaad askari tahayna wayba ka sii daran tahay waayo dalkii baad u dhaaratay nin dalkii hadlaynayo warkiisa ma qaadane waa maya marka waxaan rajaynayaa dadka teknolojiyadda rag iyo dumar hadlaya tiradiinana badiya ku socda wax allaale wixii soomaaliya isku xiraaya wanaaggoodana ka shaqeeya wixii dhibaato keenayana adduunna iska ilaaliya dhibaato aakhirana iska ilaaliya dhibaato waayo ilaahay baa loo tegayaa hadhuuto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu